وبركاته دمان بالشوين الصوماليات ملك سودوني دد على ذا كجوكان وحن كسلام يا سلامة إسلامك ولا الله يرسول هذا كنا سود هذا channel كان السما وذا فيلمز مقعي جوا إبراهيم نور سجال أو تقنن أبوان سجال تشيكي أصحابي وحينو السعودي برنامج هذه مهمة برنامج كاس ولا حمري قبر يويل قبر يويل كنه وحا أي labadooda isku dirsanayeen message qaab sarbeeba loo diyaariyay message-daas oo ah message la yiraahdo attract soo jiidasho wiilku message ayuu diray gabadhuna message ayaa soo dirtay su'aal ayaa la isweydiiyay labada dhinacba balse labadiiba waa la iska jawaabay gabadha ayaa jawaab kala soo celisay su'aal kala soo celisay su'aashii soo celisay waxay tahay su-aashii casharkan ka horeeyay haddaad la socotay waxaad ku arkaysay inay gabadhu tiraanin inay dhaqda oo isharfo oo wanaajiyo ayaan u baahanahay may noqonaysaa sidaa awgeed waxaan maanta idin wadaa jawaabtii ninka uu bixiyay oo uu gabadha u diray halkan saasa anigu waxaan ahay qaadqaadaan ahay anigu diradira ma haya diradiraha u malayn ee waxaan ahay kala gudbiye waan gudbiye anigu gabadhan ka soo qaadaa wiilkan ka qaadaa gabadhan u gudbiya bulshadana waan la wadaagaayo waxaan u sheegaa inuu meeshan inta eray ee la isdhaafsaday labadan qof ayaan markaste soo geliya intaana barnaamijkan guda gelin waxaan naga xasuusina fadlan channelka haddaad ku cusub tahay muuqaalkii ugu horreeyo aad daawatay hadduu yahay haddaad nagu cusub tahay si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed fadlan subscribe saar channelka like garee videoga share-na dheh lana wadaag asxaabtaada kuugu jirta aad iyo aad baad u mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka iyo maansadii jawaabtii gabadha su-aashii ninku uu mataqaanaa gabadha weydiiyey Faysal wuxuu yiri deeqoy walaalay ku daadshay hadalkoo dildilaacshay sheekada daa islamoodiyay dayax 15 dibnahaaga quruxda leh shalay markaan ku daawaday dareenkayga qaadaya dac kasta oo u seexdaba adigay dul joogay yaa saa markaan u seexdo dhinac isku rog ilaahdaba ayadaba u sawirmayso waata way ag taaganta waa jacayl dhaaf waa rabitaan dhaaf Allah isku calfa labadooda waa hadduu daacad ka yahay rabitaanka is rabaan okay dac kasta oo u seexdaba adigay dul joogay damashliyo aroosiyo in aan dadab galaa bandaayinkii ka barinay see doontaynay wuxuu leeyahay ninkan gabar yahay horta muuqaalkaaga wax la heli kara ma ah qurux ba alla kugu manaystay markasta gabadhan ammaan buu ninkan u raacinaya gabadhu waxba ma ammaanayniya iyadoo erayadu yiraahdaan bay wax ka dhahaysay laakiin asagu ammaan buu meeshan saa ugu dareerinay gabadha dareemaysaa oo labadooda walow labaduba la wada hayo oo ay rasaastu wada gaartay laakiin waxaad moodaa inay gabadhu qabowdahay oo degantahay wali waayo jacaylku waxa la yiri labada qof ma wada asiiba hal mar mid buu ku horeeya wasaalku waxaan ka dareemi karnaa wiilka inuu jacaylku ku hormaray oo ninku uu xoogaa dhaawacan yahay Allah u sakhir amuurahe sida awgeed gabadhu walow la yiri gabadhu waxa dareemi kartaa sidoo kale in iyaduna rabitaan ku jiro balse uusan xooganayn sida ninka uu xoogan yahay ama awoodda ninka uu sheeganayo sida loo hayo waayo amaani wuxuu isku darayaa inuu wax walbaan ku sameeynaya uu yiraahdo aroos aan galabuba taagan yahay ninkan waba soo gabagabay barnaamijka balse waxaan sugnaa waa jawaabta gabadha iyo gabagabada barnaamijka aad iyo aad baad u mahadsantiin waad ku mahadsantahay daawashadaada sida wanaagsan oo noo daawanaysid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا صعو كليبكن xiga haduu eebe idmo intaanu barnaamij lamida ku kulmi doono oo walaalkeen Ibraahim Nuur Sagaale oo idin leh waqtigu haydin wacnaado aakhirana janno adduunkana fil nicma aad buu mahadsantiin